بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم. كسو دواada Safi channel kan oo aan kaga hadalno waxyaabo badan oo faa'iido u leh bulshadeena. Maanta waxaan rabaa inaan idin la share gareeyo 12 wax oo cunto ah oo aan isticmaalno oo nologu sheegay inay healthy food yihiin oo caafimaadka u fiican yihiin laakiin khatar badan noo leh. Marka waxaan rabaa inaan idin la share gareeyo information kaas oo aad ka faa'iideysataan. Number 1 waxaan ka bilaabaynaa rootiga brownka ah. Rootiga brownka waxaa loogu sheekeeyay ama laga iibiyay in uu yahay rooti ka healthysan oo ka fiican rootiga cad. Arrintaas arrin salle ma aha, runna ma aha. Rootiga cad iyo rootiga brownka ah waa isku mid, waxa laga sameeyay waa isku mid. waxa ay ku kala duwan yihiin waa colorka oo qura. Rootiga brownka ah waxa loo isticmaalaa waxyaabo colors ah sida caramelka oo kale in laga dhigo brown oo colorkii lagu bedelo. Marka rootiga cad iyo rootiga brownka ah ma kala healthysana. Rootiga brownka ah ma ku dhahay rooti kasto brown ah waa unhealthy, laakiin badanaaba rootiyada brownka oo 100% whole wheat laga sameeyay, 100% whole wheat laga sameeyay, sida badan ma aha kuwa supermarketada aan ka iibsano. Rootiga noocaasa 100% whole wheat ka waxa laga helaa bakerieska. Intaas arrinta rootiga kaga baxaya. Qodobka labaad waxa weeyaan cuntooyinka loo yaqaan gluten free foodska. Gluten free foodska xataadan jiranayn oo aanay dani ku badin waa inaad ka taxadirtaa isticmaalkooda. maxaa yeelay cuntooyinkan gluten free ga la yiraahdo waa cuntooyin si khaas ah loo sameeyay, kuwa especially suuqa yaala waxa si cunto caadiga ay ugu ekaato ama ugu dhadhanto ayaa waxa lagu daraa sonkor badan. marka cuntooyinkaas gluten free wax xun ma aha, laakiin habka loo sameeyay ee suuqa loo dhigay ayaa khatar badan iyo caafimaad darro ku jirta. marka haddaad rooti gluten free oo kale aad gurigaaga ku samaysanaysid ama cuntooyin gluten free ah ama cake gluten free ah ama canjeero gluten free ah samayso, waa kugu dhiirigelinayaa. laakiin waxyaabaha la soo baceeyay ee gluten free ga lagu sheegay suuqa yaala ka fogow. maxaa yeelay sonkor iyo waxyaabo badan ku jiro la rabo in lagu normalize gareeyo. qodobkeena saddexaad waa dried fruit ka waxaan ay yiraahdaan ee baakooyinka lagu soo guray suuqa yaala. dried fruit kaas waxa ka buuxa sonkor badan ayaa ku jirta. maalin dhow waxaan fiirinayay dried mango baaka yar lagu soo riday 27 gram oo sonkor ku jirtay. marka dried fruit ka ha iska iibsano hadhihin waxaan waa dried fruit oo waa healthy oo snackan ka dhiganaya hadhihin inta aadan gadan oodan afkaaga gelin. waxaan jeclaan lahaa inaad akhrisid oo sonkorta ku jirta aad ogaatid. okay, qodobkeena afraad waxaan ka hadlaynaa waxaan ay yiraahdaan flavored yogurt kan ay ku flavor gareeyeen ama vanilla ku jirta ama mango ama raspberry strawberry waxyaabaha fruitska ay ku sheegaan inay ku flavor gareeyeen. flavored yogurt ka laba khatarood ayuu leeyahay. marka hore waxa fruitkan ay ku magacaabeen ay ku jira ama strawberry ama raspberry iyo mango wuxuu doonaba ha aadee wax real fruit ka soo jeeda ma aha, waa wax fruit dhadhankiisa wax loo ekeysiiyay laga sameeyay. marka fruit shuqul kuma leh. marka labaadna sonkor badan ayaa ku jirta. marka haddaad yogurt gadanaysaan iibsada yogurtka organic, natural and plain aan waxba lagu darin. haddaad rabtid inaad fruit ku dirsatid adiga ikhtiyaarkaaga fruit gooni u soo gado ama vanilla haddaad rabtid inaad ku flavor garaysatid wax adiga aad ogtahay oo intaad soo iibsatay aad ku flavor garaysatid ku dadaal. ka fogow kan ay suuqa soo dhigeen ay soo walaaqeen. qodobkeena shanaad waxa weeyaan waxyaabahan ay dhahaan meal replacement barskan, waxyaabahan lowskan iyo proteinkan iyo waxyaabahan intay isku soo dardaraan ay ka sameeyaan barska chocolatada oo kala ah. kuwaasna waxaa la sheegay inay sonkor badan ka buuxdo kana calorie badan yihiin. chocolatada runta ah ee suuqa taala inay ka calorie badan yihiin kana sonkor badan yihiin ayaa la sheegay.
marka kuwaas intaad isdhihi lahayd waana yara qaali waliba kuwaas waxaa kaaga roon adigoo chocolaatada qashinka oo suuqa taala iibsada maxaa yeelay waa misleading waayo waxyaabaha ku jira waa ka khatar badanta chocolaatada caadiga ah kuwaasna waxaan kugula talinayaa inta aadan cunin inaad akhrisid nutritional informationka waxaan kugula talinayaa inaad akhrisid nutritional informationka baakada ku qoran oo aad ogaatid sonkorta iyo subaga iyo qashinka waa meesha ku jira inta aadan iibsan waa inaad go-aan ka gaadhaa qodobkeena lixaad waxa weeyaa cuntooyinka la yiraahdo low fatka ama fat freega lagu sheego cuntooyinkaasna waa cuntooyin la isku marin habaabinayo maxaa yeelay cuntada marka low fat iyo fat free lagu sheego waxa weeyaan cuntadaas it means waxaa laga saaray subagii cuntada marka subaga laga saarana arintaas dhadhanka wax weyn ayay u dhintaa marka si arinta dhadhanka loo balance gareeyo subagi maadaama cuntadii subagii laga saaray dhadhankeedii si loo balance gareeyo waxyaabo badan oo maxay ahayto ay arintaas rabaan ay ku saxaan oo aan caafimaadka u fiicnayn oo maxay to sonkorta ha u badnaatee ayay cuntada dib ugu daraan baaritaan lagu sameeyay wadankan Ingiriiska dhawaan waxaa la sheegay cuntooyinkaas low fatka ama fat freega ah in ay 10% ka calorie badan yihiin cuntada caadiga ah for example haddii aad cake aad soo iibsatid ama biscuit ama rooti wax aad low fat ay ku qoranta aad soo iibsatid iyo kan caadiga ah ee aan low fatka ahayn waxaa la ogaaday kan low fatka ay ku magacaabeen ama fat freega inuu 10% more calories uu leeyahay than the marka loo barbar dhigo kan caadiga ah waxaa kaloo la ogaaday in sonkorta ku jirta ka caadiga ah iyo sonkorta ku jirta ka low fatka ah ama fat freega ah ay 40% ay sareyso kan ay fat freega ku sheegeen marka waxaad maxay kaga maarmi kartaa adigoo akhriya inta aadan iibsanin qodobkeena 7 meesha marayo ma aqaani qodobkeena 7 baan u maleynaya inaan qodobkii 7 marayo waa waxyaabahan saladyadan la diyaariyay ee ama boxyada ku jira supermarketada yaala ama restaurantada qaarkood ay salad iyo chicken iyo wax ku serve gareynayaan marka aad tagtid arinta saladka lababa horta saladka waxaa lagu daraa salad dressing badan si ay flavor ugu sameeyaan oo dhadhan ugu sameeyaan salad dressingkaas oo laga sameeyay waxyaabo badan oo aan caafimaadka anfacaynin waa marka koowaad marka labaad saladka aniga salad suuq maba ka iibsanayo salad aan suuq ka iibiyo maba cunaba maxaa yeelay saladkan si fiican looma maydhin sida aad ogtihiin cuntada hadda aan Yurub iyo West-ka ku cunno sida aad ogtihiin waxyaabaha lagu soo buufiyaa khatar u leh nafta bini'aadanka marka salad aan la maydhin oo inta lagu soo jarjaray bac lagu soo shubay oo dressing lagu daray sonkor iyo subag iyo cusbo laga soo buuxiyo lagu dress gareeyay si lagu khaldo oo dhadhan macnihii ku soo jiidanayo loo yeelay ujeedadana ay tahay in dhadhanka lagu soo jiito laakiin dhaawac badan uu kugu jiro oo cusbo badan iyo dufan badan iyo maxay ahayto sonkor badan lagu daray taasna ka digtoonaada saladka waa wax fiican hadaa salad cunaysaan soo iibsada si fiican iskaga maydha cusbo yar iyo liin intaas uu u baahan yahay saladka wax intaas ka badan uma baahna wixii intaas ka badan waa waxaan dan kugu jirin qodobkeena 8 saa u maleynaa qodobka 8 aan hadda ka hadlaynaa waxa weeyaan wax kasta oo lagu yiraahdo waa sugar free it means meel wax kala lagu replace gareeyo sonkortii aad taqaanay wax kala lagu replace gareeyo ama lagu bedelay marka artificial sweetener-ka aad loo isticmaalaa oo sonkorta lagu replace gareeyaa iyadoo mar hore dadka laga dhaadhiciyay artificial sweeteners-ka waa kaaga fiican yihiin sonkorta runta ah video arintaas ku saabsan hore uga hadlay artificial sweeteners-ka iyo dhibaatada ay qofka bini'aadanka u leeyihiin
marka waxyaabahan ay sugar free-ga leeyihiin waxay ku bedelaan artificial sweetener-kay sonkorta ku bedelaan. artificial sweetener-kana horaan idinku sheegay waxaa ku jira wax la yiraahdo aspartame. aspartame-kana waa wax kansarka link la leh oo cause gareeya sida la sheegay baaritaano badan oo la sameeyay. marka maxay ahayd to wixii sugar free ku qoran tahay ee aad aragtaan dan maxaa lagu macaanayay waa inaad isweydiisaan. sonkortii meeshaan sonkor kuma jirtaa leeyahay maxaa sonkortii lagu bedelay ilaa shaygan sugar free-ga ama cake ama chocolate ama biscuit wax macaan aad ku taqaanay ayaa lagu leeyahay waa sugar free. wax dhici kara ma aha. waxa waa wax macaan waa aqaana markaan cunana waa macaan yahay. sugar free wax ama jiraan maxaa sugarkan aan naqaano lagu bedelay waa inaad isweydiisa. waxaa lagu bedelayaa waxyaabahan artificial sweeteners-ka ay yiraahdaan iyo sonkorahan kale oo magacyada badan ay u samaysteen aan dadka caadiga aanay fahmi karin. marka wax sugar free la yiraahdo ma jirto. marka aad wax sugar free aragtaan waa inaad alert noqotaan oo tiraadaan okay this is sugar free. laakiin maxay dabada ku haysaa arrintan. qodobkeena xiga hadduu kii sagaalaad yahay iyo haddii kaleba waxa weeyaan microwave popcorn. microwave popcorn-ka waxa weeyaan popcorn diyaar ah oo dadkeena qurbaha jooga badi intay soo iibsadaan asagoo diyaar ah microwave-ka la gelinayo 2 minutes waxaa diyaar noqonayo popcorn-kii. popcorn-ka microwave-ka lagu sameeyay diyaarka ah sonkor badanaa ku jirto, cusbo badanaa ku jirto, waxyaabo kale ku jiraan. ka fogaada popcorn haddaa rabtaan. popcorn-ka waxun ma aha. popcorn caadiya soo gado waa wax anaga dhaqan noo ah. popcorn-ka wadankeena waa aadaa looga isticmaalaa. wax caafimaadka u xunna ma aha. wuxuu ku jiraa popcorn-ka one of the healthiest snacks ayuu ku jiraa. snaagyada aan qurbaha ku cunno ka ugu fiican uu ku jiraa. laakiin wuxuu fiican yahay markaa adiga samaysatid oo cusbadiisa iyo sonkortiisa qiyaasatid. ka fogow kan diyaarka ah waxyaabaha ku jira mataqaani. qodobkeena xiga aan u malaynayo qodobkii 10aad inuu yahay. waxaan ka hadlaynaa waxa la yiraahdo smoothie. smoothiga waxaa la yiraahdaa qofkii aan garanayn aan u jalciyo fruit la shiiday oo lagu daray ama caano ama yogurt lagu daray ama biyo lagu daro la shiiday ayaa smoothie-ga loo yaqaanaa. marka smoothie-ga wax xun ma aha laakiin sida loo sameeyo ayaa xubayn karta ama fiicnayn karta. smoothie-yada marka aan ciyaalada aan u saarno banaanka oo kafeeyada iyo lagu iibiyo ama supermarketada yaala smoothie ma aha. waxaas ka fogow maxaa yeelay real fruit kamaba soo jeedaba. fruit artificial ah waaye. marka number 1 real fruit kama soo jeedo. number 2 sonkor badan oo aan xad lahayn ayaa ku jirta. marka smoothie haddaad cunaysid aad aragtid inaad cabtid waxaan kugula talinayaa inaadan dhahin smoothie markaa maqashidba oo macnaheedu smoothie waa wax good for you oo healthy ah. smoothie-ga healthy waa noqon karaa haddii si healthy loo sameeyo. sunna waa noqon karaa haddii si qalad loo sameeyo. marka smoothie haddaad u baahan tahay soo iibso fruitkaagii fresh ah. organic ku dadaal. haddaanay organic ahayna si aad u fiican u maydh. hadda waxaa la sheegaya maalmo dhaweyto in fruitka haddaad ku maydid baking powder ay ka dilayso waxyaabahan ay kusoo buufiyeen qaarkood. marka fruitkaaga adoo iska maydh. marka smoothie ka samaysanaysid fruitka natural sugar isu wataa asagaa sonkortiisa wata. sonkor uma baahnid inaad ku dartid. isticmaal biyo ama waxaa markaa shiidaysid ama biyo ku dar ama coconut water ku dar ama almond milk iyo waxaad jeceshahay ama plain yogurt ku dar oo aan yogurtka lasoo qasay aan ka hadalnay aan ahayn. healthy waa yahay smoothie-ga haddii si healthy loo sameeyo. qodobkeena 11aad amaba qodobkeena xiga waxa weeyaan juice-ka. waxaa la yiraahdaa juice cabitaanada ama dhalaha ku jiraan ama baakaha ku jiraan cabitaanada suuqa yaala. in badan oo idinka midana waa ogyihiin. inta aan ogeyna ha ka faa'iidaystaan haddaan u sheegayaa cabitaanada suuqa yaala sonkorta ku jirta wax xad la ma aha. sonkor aad u badan ayaa ku jirta. ilmahana khatar u leh. marka haddaad cabitaan rabtaan waxay ku fiican tahay cabitaan adiga aad samaysatay oo gacantaada ku miiratay ama ku shiidatay inaad cabtaan.
cabitaanka suuqa yaala lababa mar waa maxay to kama soo jeedo wax fruit real ah lagama samaynin wax artificial ah laga sameeyay oo loo dhadhan ekaysiiyay fruitkii runta ahaa hadduu orange yahay waxaa laga sameeyay dheecaan orange oo concentrate ah oo sidii oranjada loo u dhadhamay laakiin aan orange ka soo jeedin oo la alifay hadduu maanga lagu sheegay wixii doonaan ku sheegaan cabitaanada suuqa yaala wax fruit shuqul kule ma aha waxa laga sameeyay koow labo sonkorta ku jirta wax la qiyaasi kara iyo waxaan ka hadli karna ma aha haddaad cabitaanada qaar eegtid baakada waxa ku qoran waad naxaysaa sonkorta ku jirto marka in sonkorta ilaa xadkaas ah caruurta la siiyana waxay ila tahay inay tahay arrintaas dambi caruurta laga galay qodobkeena u dambeeya ee 12aad waxaan ka hadlaynaa arrin aan hadda ka horna video kale ku taabtay caanaha skimidka ay yiraahdaan ee subaga laga wada saaray ama semi skimidka ay yiraahdaan ee half laga saaray subagii kuwaasna caafimaadka inay u fiican yihiin ayaa dadka laga daadiciyay laakiin kuma fiicna horaan arrintaas uga hadlay caanaha waxay ku fiican yihiin inay yihiin natural full fat sidii neefka looga soo lisay ee ilaahay ugu talagalay caanaha subaga laga baxsaday wax faa'iido ay ku leeyihiin ma jirto marka maxay ahayd haddaad caano iibsanaysaan ama caruurtiina aad caano siinaysaan u iibiya caanaha full creamka ah idinkoo ku dadaalaya inaad isticmaashaan weliba caanaha organiga ah maxaa yeelay kuwa aan organiga ahayn waxaa ku jira antibiotic badana neefkaas la soo siiyay hormones la soo siiyay steroids la soo siiyay waxaasoo dhan marka ilmaha la siiyo ama qofka uu cabo jidhka ayay alaabtaasoo dhan galaysaa marka hadda warwarka ugu weyn ee adduunka hadda ka jira waxay tahay in dadkii jidhkoodii u antibiotic badan galay maxaa yeelay hilibka aan cunayno iyo caanaha aan cabayno ayaa antibiotic laga soo buuxiyay marka kulli antibiotic aynan dhakhtar noo qorin oo ay noo qortay maxay ahayd taariikhna waxa noo qoray ayaa jidhkeena maalin walba gasha marka arrintaasna waa arrimaha caafimaad darrada dadka haysta kamid macnihii ku lugta leh arrintaasna waa arrinta caafimaad darrada adduunka ka jirta ku lug leh oo lug weyn ku leh taasna ka digtoonaada waxaan jeclahay inaad videogan ka faa'iideen haddaad ka faa'iidaysateen ama aad jeclaysateen thumbs up isiiya subscribe gareeyana haddaad su'aal qabtaan ama aad rabtaan inaad wax comment bixisaan xagga hoose ku soo qora anoo isku dayi doono inaan idinka jawaabo insha Allah waa mahadsantihiin